Salma Jaabir waxay sanado ka hor dhamaysay heerka koowaad ee waxbarashada sare ee jaamacadda. Caqabado kala duwan oo ay ka martay helidda shaqo ku aadan aqoonteeda jaamacadeed kadib waxay bilowday barashada xirfado ay rumaysan tahay inay kaga bixi karto caqabadahaas. halkan waxaan ka bartay aan cilaan saarka. cilaanka waxa igu dhaliyay maadaama ah maamo haddana aan ahay ardayd ka soo qalin jabisay jaamacadda wadanka ku yaala mid ka mid ah shaqadii iyo magaaladina la qabsan waay qaab shaqo aan ku helo aan waay si walba oo dadaalay waxa isdhaa marka hadii xirfadahaas baratid wax badan oo soo kordhi kartaa naftaada iyo qoyskaaga marka sidaas darteed aan u galay si aan u barto horeyna waxa u bartay harqaanka. waxaa Salmo ku weheliyay barashada xirfadaha qurxinta dumarka tobanaan saaxiibadeed ah sida Maryan Axmed oo iyana idleysay waxbarashadeeda jaamacadeed. marka hore xirfada inta ka barto waxa kamid ah cilaan saarka iyo make-upka weliga ilaa waa jeclaan jiray jaamacadda markii aan dhameeyay fursad aan ku barta ayaan helay wax badan aan ka faa'iido marka imaanay waxyaabo badan aan fahamsanayn aan deer fahmay sida cilaanka deer inaan qofka u sabiri karo naqshadii oo la ii keenay aan qori karo make-upkana qofna waa u marin karaa anigana waa isku marin karaa. aragtida iyo hirgelinta xaruntan lagu tababaro dumarka waxaa la gaar ah Rasmi Mire. xaruntan waxaa la aasaasay 2018kii waxyaabo fara badan ay qabataa sida arkaysaanba waxa kamid ah waxyaabo qabato cilaan saarka make-upka cunno karinta sidoo kale public speaking oo kale aan ugu talagalnay gabdhaha inay yani ay noqdaan kuwo ay hadli kara ama meel walba ay tagaan dhiiban kara codkooda inta ay inka badan ay qabataa xarunta waxaan ugu talagalnay in gabdhaha lagu soo saaro jecelna xirfadaha ay aad u daneenayo walaahi waxay isugu jiraan kuwa arday jaamacadda dhigto sidoo kale kuwa dhameeyay maamooyin gabdho yar yar oo hadda soo kacay intaba isugu jiraan oo xarunta isugu wada imaadaan oo waxna way ka bartaan ma sha Allah maanta sidoo kale kuwa waxa jiro wax bartay oo waxyaabaha ay barteen guriga kula noqono waxyaabo fara badan ku qabsada gudaha magaalada Muqdisho ugu shaqeeya. Salma Jaabir waxay rajaynaysaa markay ka qalin bedelato xaruntan inay furto goob ay ku tababarto haweenka. horta qofka xirfad markuu baranayo wuxuu u bartaa inuu naftiisa wax ku taro teeda kale hadii uu dakhli ka helan okay waa idane laakiin marka hore waxa loo bartaa maxaa taqaanaa oo kale xirfadaada waxay dhisaysaa qofnimadaada waxa jeclaa sida hadartaan oo kale macluumaad wadad u sii barayso sidaas oo kale inaa sameeyo oo arday kale aan soo saaro ama gabdho kale oo horumariyo insha Allah. dunida maanta oo kale 15 July waxaa looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ee xirfadaha dhalinyarada si loo weyneeyo doorka ay daayirtu ku leeyihiin horumarka iyo kobaca dhaqaalaha ee wadamadooda. Rasmi Mire ayaa gabdhaha waxbarta iyo kuwa kale aysan fursadda iyo duruufaha nololeed u saamaxin ku dhiirigelinaysa inaysan barashada xirfadaha u daymo la'aan si ay horumar uga sameeyaan. anigoo ka faa'iideysanaya fursadan maanta ay ku beegan tahay maalinta xirfadaha dhalinyarada waxa ugu baaqi lahaa gabdhaha jecel inay bartaan xirfadaha in ay xoog saaraan qaasatan dhanka xirfada si noloshooda birta ka maalin ay ugu maareeyaan meel kasto ay tagaan dunida meel walba ka joogaan wax ugu qabsadaan horumarka haweenkana waa goosha qoyskeena. xirfadaha dhalinyarada waa siinta aqoon iyo tababar ku filan daayirta si ay u qaabilaan howlgalka loo carbinayo inay ku meelmariyaan soo saarista isbeddelka looga fadhiyo iyadoo isla mar ahaantaana loo diyaarinayo inay isku filnaadaan.